بسم الله الرحمن الرحيم gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ku-xigeenadiisa gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar taliyaha saldhigga booliska magaalada Jowhar gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma gudoomiyaha ku-xigeenka ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxa tababarada dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma dhammaan saxafiyiinta halkan ku sugan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib caawa waxaan halkan u joognaa runtii casho sharaf oo inoo sameeyay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe mudane Axmed Meyre Makaraan cashadaasi ugu talagalay runtii saxafiyiinta ka howlgala deegaanada Hirshabeelle iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma oo maalmahan magaalada Jowhar u joogay howlo shaqo ayagoo tababar siinayay saxafiyiinta ka howlgala guud ahaan deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka Beledweyne Bulburte Jowhar iyo Balcad tababarkaasi oo ku saabsanaa habtawinta doorashooyinka iyo waliba badqabka wariyaha runtii anigoo ku hadlaya magaca dhammaan saxafiyiinta ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe mudane Axmed Meyre Makaraan runtii maamuuskan iyo casharaftan caawa oo inoo sameeyay sidoo kale cashadan waa sagootin markaasi gudoomiyaha ugu talagalay in lagu sagootiyo mas'uuliyiinta dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma oo dhowr jeer sidan oo kale ku soo noqday Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar oo sidan oo kale in soo gaarsiiyeen tababar kor loogu qaadayo xirfadda wariyaasha ka howlgala Hirshabeelle waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dalada Sooma waxaan rabaa in halkan aan sidoo kale ka qiro maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe runtii in wada shaqeynta uu la leeyahay saxafiyiinta gobolka inay tahay mid wanaagsan oo halkan ba aan markaasi ka ogaan karno in gudoomiyaha uu noogu talagalay ama maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ba runtii maamuuskan iyo casho sharaftan runtii waxaan filayaa dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma sidan oo kale waxay soo mareen dhowr magaalo oo ah caasimadaha dawlad goboleedyada kale ee dalka ay ku shaqeeyaan ayagoo sidoo kale gaarsiinaya saxafiyiinta halkaas ku sugan tababarkan noociisa ah runtii waxaan filayaa in maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee dawlad goboleedka Hirshabeelle runtii maamuuskan iyo waliba cashadan uu u sameeyay in sidan oo kale aysan ka dhicin magaalooyinka kale soo mareen saaxiibadeen runtii waan kaga mahadcelinaynaa maamulka gobolka sidoo kalena sidaan hore u sheegay wada shaqeynta wanaagsan ee maamulku uu la leeyahay saxafiyiintana runtii waa mid aan hore u sheegay oo mid wanaagsan idan aan kaga mahadcelinayno anigoo ku hadlaya dhammaan saxafiyiinta ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan rabaa in aan mahadcelin ballaaran aan sidoo kale u jeediyo dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma sidoo kalena aan fariin u diro daladaha iyo hay'adaha kale ayagana ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya in ay ku daysadaan Sooma sidii ugu soo noqotay magaalada Jowharna in ayagana ugu soo noqdaan wamaasantiin waxaan rabaa hadalka inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha dalada warbaahinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa gudoomiyaha degmada gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha saxafiyiinta Shabeellaha Dhexe tiimka Sooma iyo bahda kale wariyaasha waxaan ku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaankii dib inaga caawa waxay noo tahay habeen farxadeed yacni waxaa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Jowhar markii ugu horreysay halkaan imaanay oo aan ugu talagalnay inaan tababar u qabanno wariyaasha Hirshabeelle oo ka kala yimid Beledweyne iyo Jowhar iyo Balcad ujeedada tababarka halkan loo qabanayna waxa ahayd in tabinta doorashooyinka iyo badqabka wariyaha markii aan halkaan imaanay oo maalintii ugu horeysay waxa halkan aad noogu soo dhaweeyay bahda wariyaasha maamulka degmada iyo wasiir dawlaha wasaaradda warfaafinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka soo dhaweyn midda ugu qiimaha badan aan lagu soo dhaweeyay haddana caawa oo ahayd habeenkii aan ugu dambeysay oo magaalada Jowhar ka baxaynay inkastoo Jowhar mar badan aan ku soo laaban doono ayaa haddana waxaa noola sameeyay si lama filaan ah soo dhaweyn iyo sagootin aad u qurux badan oo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka mudane Axmed Meyre Makaraan waxaan leenahay
كل واحد كله عن شيء نملا هن سيدنا نروح ذا بدنا نولسه وحن لنا هاي وأنا قدرتين وأنا شرفتني الله يدي شرف إيدين كنا وحندير رجينا ورياش كلا قبل كا أما الدجمة جوهر يدينا ذا كلا كهول قلا إن واحد بدنا يكبرن كران سيدنا نروح ذا بدنا إمام الكنوس ودويين وحن رجينا إن يديكو ديجان كدجن إن سيدنا كبدن مامور كدي تحقلين دونان سيدنا كقدرين بدنا يدي سودوين دونان وحن رجينا إسفهن إن هالكاسو كردشوا مامور كقبل كشبه الله هذا حسين المليسين كرين أي هالكن نوجسوا دوين عاوة وأنهم هاد علينا وأنوسي ما هاد علين دونا مركي عن مجالوين كلا تجننه هذا وحنا نقول دون تا إن عن مر واللي ما ماشي كشجنو كلي وحنا وحكلوا عن سمينا ملهن سيدا وناكسن ولا التيني ماذا إيو مسؤولية دم معمولات إنه لوجسوا دوي وعميد عن القياس كرين مركو حنكسوا جبينا هذا الكيجا وأنا شرفتني الله يدي شرف عن قرية دون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوميها قبل كشبه لدى الدحاء مدن أحمد مير مكران يو كوحيدان نديسة قدوميها الدقمدة اسمان باري قدوميها أوركا دلنيرادة تليها سليقة بوليسكا بعض الصحافة دا كوحدا تيم كان تبارك هالك كوب بحنايي ليلة الصومع مدحدودا لما أنتينا وحنا تقول السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مرتقات كان شرفت بدن وسميه قدوميها قبل كاد بانو محل علنينا ولقوا سقوتني كوعدي هالكان تبارك كل ما يستوي صحافة ده ورنتي هالكان مدة دور مع المودرن لا جوجي هلأن هاي ما هتسنتهين تبارك أتقبتين الصحافة دونه وهذا يرو هذا هو في الفرعون شغله ده أيضا وحن لأن هاي ماشي نكسي وده هو شينا تبارك أتقبتين وحن فليا واحد بدل إنه ودك بدل الدونه سين بري واحد مقالنا بعض الصحافة ده وهي يعني كجران ريسك فربدن ريسك جاس ومتكات كشغين نيسان ودول قاطة waxaa laga yaabaa in qofan waxba haleyn marka qaar hadda waxaan maqlaynaa marar badan waa la xiraa qofka waxa laga yaabaa waxba haleyn hadalkii uu sheegay kaliya lagu xirayo ku dul qaata arintaas waxaan rajaynaynaa inaad ku dul qaadan doontaan hawshiina aadan maartay yani uga gabarina marna shaqadiina aad si wanaagsan u gudataan runtii saxaafadu waxa la yiraahdaa mararka qaar waa seef laba af leh oo hadba dhinacay rabaan wax u gooya anigu arintaas ma qabo waxay leedahay hal af ay leedahay oo bulshada ku wacyi geliso wararkii ayna heli lahayn oo runtii ay dadku ayna soo gaarsiiyaan wixii la qarinaan ay kor u sheegaan marka arintaasna waa idinka mahad celinayna soo dhawaada qolada baxaysana waxaan leenahay safar salaama maartay yani waa ku mahadsantihiin qayr badan aan idin rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fiinta Hirshabeelle gudoomiyaha صحفيينتا gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dhammaan saxaafadda inta joogto salaamu calaykum taliyaha saldhigan waa kana taliyaha xataa waa kana caawd salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caaw casheeheed war badan ma jiro raal ahaada gogosha hadii xoogaa wax ka qaldanaayeen oo xoogaa ay isku toosnayn gogoshiini waaye tabarta inta naga aheedo wax ku dhiileys ma dhahin marka raal lahaada idin aad iyo aad u mahadsantiin dadkan si sagootimeena waxaan rabnaa inay noo soo noqdaan rabnaa waxaan maartay cashada iyagu sameeyeen iyo soo dhaweynta waxaan rabnaa inay noo soo noqdaan ay marka sama maartay ay yiraahdeen wixii la soo helay Jowhar ku roon ama Hirshabeelle ku roon inay yiraahdaan rabnaa صحفيينتا aynkana maartay qaar ka hadda maartay caasimadda la jooga xoogaa nagu dhow balcado xaatay maartay Shabeellaha Dhexe ka tirsan waxa laga yaabaa inay hadii ay intay ma tagtay soo safrayso hiina waa ka sii daranto diyaarad in la soo raaxay naqaysa marka صحفيينتا jooga hadda caasimadda intaas la joogno ayagana waxa maleeyahay muugtahay in hadda ka hor saan oo kala ma dhicin marka waxa isleeyihiin goorba maartay mas'uuliyiinta oo hay'adiina madaxeeda loo sameeyay isleeyihiin
idinkuna waqti allaale waqtigaa rabtiin waa dhigi kartiin inaad la sheekaysanaa rabnaa maamulka iyo annaga ama qadaha naloo sameeya ama casha naloo sameeya isla sheekaysano waa idin furanta idinku naftiin haddaad ashib iska tiraayin oo iska dhigtiin laba oo maaragtay dad kale ajaanib camal aad nolol dhaqantiin mogto kala fogaashada intaasaa keenayso laakiin maamulka waxaan rabnaa inaan maalin sheekaysanay goormee maamulka lees heli kara haddaad dhahdiin waa diyaar marka idinkuna maaragtay waa idin soo dhaweynaynaa waanu ku faraxsannahay caawa inaan isla fiidsanay aheeday wax kale ma ahayn maadaama haatee hawsha markay socoto guddoomiyaha iyo tiim kale intaan ogaay ma ogmaahayna aniga nafteyda markiiaa lay soo wacay ma ogeyn hawsha marka hore jirta hadday jirleed haatee aad uga qayb qaadan lahayn laakiin hadda guddoomiyaha iyo noo joogay oo hawsha maaragtay soo dhoweynta ka qayb qaatay marka caawa cashay ahayd gogosha marka waxa allaale wixii ka qaldanay isaga dulqaata sideeda waa gogoshiinni aadaa u mahadsantihiin wax kaloo maaragtay hadal dheer iyo hadal jeedin dheer ma jirto cashada isugu nimadiya inaan isla fiidsano soo dhowaada aad iyo aadaa u mahadsantihiin idinkana ilaahayda aruusho waa idiin rajaynaa khayr badan iyo inaad noo soo nanaqatiinood tababar fiican noo helaan dhallinyartaan maaragtay wiilashii gabdhaha isugu jiro xilliga duruufta adaga maaragtay inay shaqadan galaan ku kaliftay laakiin haddana inay waxbarasho sii helaan ay ayaga maaragtay aqoontooda sii kororsadaan waa wax aad iyo aad muhiim ah marka aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi